annagu arday baanu nahay ubixi aflax baanu nahay akhlaaqdan daris lanahay ayaadka quraanka iyo qowlkii rabbi baan sidnaa waxay ka soo hadlayaa xarunta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Djibouti oo ku yaala xaafadda Bulxubey ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dugsiga Djibouti waxa uu ka mid yahay iskuulada dadweynaha oo ay maamusho wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya saaka waa maalintii ugu horeysay oo ay u bilaabanayso sanadkooda cusub ardayda Soomaaliyeed ee ku barta canshuurta dadweynaha oo ay qaadulada Soomaaliya sanadkaasi oo ah 2024 waxaan saaka u kulgeli doonaa xaaladda waxbarasho ee dugsiga Djibouti iyo sida wax ku bartaan ardayda Soomaaliyeed waxaan ku bilaabi doonaa ardayda oo xil hore iskuulka soo gaaray ayaa waxa ay sameeyeen taabuurka kaasi oo ah qaybta bilowga ah isla markaana ay kaga bilaabanayso waxbarashadooda waxaana ay ku soo jeediyaan arday walba uu ku wanaagsan yahay hooyadu waa geed harweyn waa labada hargala harka hooskeeda humaasheeda quruxda badan harad waxaa qabo nimaan hooyo aan hargaali jannadii ifkay Djibouti iskuulkee waxbarashadiisa wacan Djibouti iskuulkee arxadii oo fahaygay aqoontii oo aragtidayday tii lagu aaminay naftayday ha afoowin hooyoy lixdankii gumeysiga gacantiisa kala baxay calan midab u gaariyo sumadalka u kartaa tahay xidigta shada geeska gees noo ilaashiyo geesadu ku dhaarto gabashada gacanka gabyaaba aynu leenahay kolkay goob dagaalta gubaabada ku caano geeraariis fuleeyada dhaxgalayna cadaawada gaadiid baynu leenahay gulgulshaanu ranaa hadban waanu kuranaa dhul guduudan oo gogoldoolahay waa waxaa dhulkeena u gaarahay laynagu garta maantay galadii noo soo gashay gobonimadayada guul loo adkay sidoo kale waa halkan dabcan ee kula hadlay qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga Djibouti ardayda Soomaaliyeed ee saaka u bilaabanayso sanadkooda cusub ee 2024 waxaana hadalka macallimiinta u badnaa dardaaran ku aadan inay ka faa'iideystaan ardayda Soomaaliyeed fursadda ay haystaan waxaan rabnaa arday walba sidii hore si ka duwan oo ka wanaagsan inaan dhexda u xiranno aan u guntanno faceena sidaan ugu muxaa'een ula xisaabtami lahayn waxaan leenahay deris oo aad dugsiyo oo muxaa'een deriskeena ah waxaa loo baahan yahay tartan aqooneed inaan sameeyno si aan aqoonteena ay u dhisanto Djiboutina waxa lagu yaqaan waxay ahayd firfircooni iyo waxbarasho maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Djibouti Maxamed Ali Axmed Dayax ayaa ugu dambeyntii waxa uu dabcan si rasmi ah uu saak u daafuray sanadka cusub ee dugsiga Djibouti ee 2024 waxaana ugu baaqay ardayda Soomaaliyeed in sanadka oo maanta u bilaabanaya inay ka faa'iideystaan waqtigooda arday kasta oo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho free ama bilaash ah adiga ayaana nasiibka kugu saaciday in canshuurta dadka Soomaaliyeed ay bixiyaan wax lagu baro aad ku aflaxdo macallimiinta mushaar lagu siiyo iskuul aad ku hesho sidaas daraadeed waxaa la rabaa ardayga dawladda waxbarashadiisa ay bixisay ee freega looga dhigay ama bilaashka looga dhigay inay edabtiisa iyo akhlaaqdiisa ka muuqato edab iyo akhlaaq iyo nidaam iyo sharci ayuu iskuulku leeyahay edabta iyo akhlaaqda iyo iskuulka in la ilaaliyo siyaasadda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare in la ilaaliyo inay naga wada muuqato mudnaanta nala siiyey ee ardayda Soomaaliyeed nala ka siiyey inay naga wada muuqato dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Djibouti ayaa waxa la aasaasay sanadka wuxuu ahaa 1977 dugsiga waxa uu ku soo biiray iskuulada dadweynaha oo ay maamusho wasaaradda waxbarashada sanadkii 2017 hadda waxa dhigata isla markaana canshuurta laga qaado muwaadiniinta Soomaaliyeed wax ku barata arday gaaraysa 2107 arday Soomaaliyeed ah ardaydaasi 1261 ka mid ah waa wiilal halka 876 ay yihiin gabdho dugsiga Djibouti macallimiinta barayaasha ah ee halka wax ka dhiga waxay gaarayaan 60 macallimiin ah
oo u diiwaan gashay wasaaradda waxbarashada macallimiintaasi 12 ka mid ah waa dumar halka 40 ay yihiin dabcan macallimiin rag ah oo ay ku jiraan macallimiinta da'da ah ee dawladda dhexe ilaa haatan barayaasha ka mid ah aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan ka mid ahay ardayda dhigato iskool Jabuuti sanadkan ay tahay sanadkii ugu dambeeyay ee form 4 ahay maxaa yeelay arday badan hadda naga mid ah iyagana way soo marayaan marxaladan insha Allah ardayda form 4 waxaan rajaynayaa guul inta sugaysana waxaa leeyahay insha Allah natiijo wanaagsan oo qurux badan ayaa idin rajaynayaa dugsiga Jabuuti maanta waxa u bilaabatay sanadka cusub ee 2025 عبد الرشيد محمود محمد warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho